السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا sida tooska ah nooga daawanayo barteeni Facebooka dhammaantiin waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan. Waa maalin sabti ah. Waxaynu jecelnahay inaanu halkan ku falanqayno shirkii Samareeb iyo sababihii keenay in lagu kala tago. sidoo kale waxaanu wax ka taataaban doonaa kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh dhammaantiin waxaanu idinka codsanaynaa in aad barnaamijkan sheer garaysaan oo aad la wadaagtaan dhammaan qaybaha iyo guruubyada Facebooka. barnaamijkeeni waa barnaamij ka mamnuuc ah aflagaadada qabyaaladda iyo shakhsi weerarka. barnaamijka waxaa ila daadihin doona walaalkayga saaxiibkayga Maxamuud Cabduqaadir Baafadal oo ku sugan waddanka Netherlands. Maxamuud ma maqlaysaa? aad iyo aad maasha allah tabaaraka allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. maalin wanaagsan meel walbaad caalamka joogtaan Soomaali weyn. waa maalin sabti ah kuna beegan 6 February 2021. sida uu walaalkayga Ustaad Cabdulqaadir Zeyn idin sheegay waxaan jecelnahay insha Allah tacaala inaan yara falanqeyno shirkii lagu kala tegay Samareeb ekisbu Samareeb insha Allah taasoo aan wax ka weydiin doono Ustaad Cabdulqaadir Zeyn sababaha keenay in lagu kala dareero oo la isku afgaran waa. waxaan idinka codsanaynaa dhammaan walaalaha sharafta leh ee Soomaaliyeed inaad la wadaagtaan dhammaan guruubyada kale ee Soomaaliyeed si insha Allah tacaala fariintaan ay u gaarto walaalaha Soomaaliyeed oo idil. Ustaad Cabdulqaadir Zeyn haddii aan insha Allah tacaala u guda galno barnaamijka sababta keentay in shirka Samareeb lagu kala tago wax ma noogu sheegi kartaa adigoo mahadsan? codka ma jirayaa kuma maqlaayo xaggayga. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalaha inaga daawanayo Facebooka. dhammaan waxaanu idinka codsanaynaa in aad barnaamijkan share tiraahdaan isla markaana wixii comment iyo wixii su'aalaba aad qoraal ahaan noogu soo gudbisaan. barnaamijkan cidda uu dhaafay waxay ka daawan doontaa Al-Zeyn Media YouTube-ka Al-Zeyn Media oo barnaamijkan isagoo dhammaystiran aad halkaas ka daawan doontaan. aad iyo aad u mahadsan tahay. runtii sida aan la wada soconno waxaa lagu kala tegay shirkii ka socday magaalada Samareeb. shirkaas oo ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir. shirkaas oo runtii la isla mari waayey oo meesha muranka ka taagan ay ahayd gobolka Gedo. madaxweynaha runtii iyo Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland waxa oo ay muranka ka taagnaa u ahaa yacni doorashada aqalka hoose maamulkaas ama gaar ahaan Garbahaare ka dhici doonto cidda maamulayso. muranka arintaas ayay ka taagneed. waxaa kaloo muran ka taagnaa oo la isla mari waayey oo runtii aad looga doodayay
oo sababaha lagu kala tegay keentay waxay ahayd in madaxweyne ama hogaamiyaha maamul goboleedka Axmed Madoobe ayaa dalbaday in ciidamada jooga gobolkaas Gedo gabi ahaanba laga saaro oo maamulka Gedo lagu soo celiyo gacanta maamul goboleedka Jubbaland. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arintaas ku gacan seeray. Arintaas runtii gabi ahaanba waa uu ku gacan seeray, waa uu diiday. Marka sababaha keenay in lagu kala tago oo shirka uu fashil ku dhammaado arintaasaa keentay in meesha macnaha lagu kala tago. runtii madaxweynaha khudbadiisana maanta kolay waa aad dhegaysatay waxyaalaha loo aaneeyo in shirkaas uu fashil ku yimaado. waxa uu sheegay in ay jirto faragelin dowlado shisheeye. arrintaas ayuu madaxweynaha aad ugu nuuxnuuxsaday uu ku celceliyey. baarlamaanka runtii madaxweynaha uu ku khudbeeyey khudbadiisii waxyaalaha uu aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu ku celceliyey waxay ahayd in ay jirto faragelin shisheeye iyadoo uusan tilmaamin dowladda faragelinayso. haddana waxaa jirto wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa horay dowladda Kenya ugu eedeeyey in ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha Soomaaliya. taas eedeyntaas waxaa horay dowladda Kenya ugu eedeeyey wasiirka warfaafinta. marka madaxweynaha maanta ma tilmaamin dowladda faragelinta ku hayso Soomaaliya, khudbadiisii ma ku tilmaamin, laakiin wuxuu ku celceliyey in ay jirto faragelin ay dabada ka riixayso dowlad shisheeye oo taas keentay in uu fashil ku yimaado wadahadalkii ka socday magaalada Samareeb. mila socotaa baafadal? si wanaagsan, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay Ustaad Cabdulqaadir Zeyn. run ahaantii sidaan ka warhayno Soomaaliya 20 sano ugu dambeeyey faragelin ayaa jirtay. dowladda shisheeye ayaa dowladda run ahaantii taakulaysa oo ciidamada imika ku sugan ee Amazon iyo mishaaraadka dowladda waxaa bixisa dowladda ajnabi ah sidaan ka warhayno. marka Ustaad Cabdulqaadir Zeyn, maadaama maalmo badan uu socday shirkan Samareeb, maxaa la oran karaa idadiilo nooce kala ah ayaan ka filan karnaa waxa noogu soo food leh? run ahaantii maanta waxaad ka warhaysaa 48 saacadood ka yar ayaa ka harsan xilka si rasmi ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xilka waqtigiisa intaas uu ku ekaa. ha yeeshee ilaa hadeertaan yani waa lismarla'yahay. marka su-aashaan rabo inaan ku soo celiyo waxay tahay sidee lagu gudbaa mansab jeceel iyo qaran jeceel ama qabiil jeceel? aad iyo aadaad u mahadsan tahay. madaxweynaha maanta khudbadiisii waxaa ku jirtay oo uu ka caddeeyey xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaysan dhici doonin firaaq dastuuri ah. wuxuu sheegay madaxweynaha ma dhici doontuu yidhi firaaq dastuuri ah. macnaheedu dadka sheegayo oo dhahayo 8 Febraayo oo waqti kooban ka harsan ma dhici doontuu yidhi firaaq dastuuri ah. macnaha waxaa meesha ka muuqdo
oo sida dadku ay hadal hayaan ilaa laga soo dooranayo baarlamaan kale madaxweynaha isaga ayaa ahaanayo madaxweyne sharci ah oo waddanka maamulayo sidaas ayaa hadalkaas madaxweynaha loo macneeyey macnaha wuxuu leeyahay meesha ma jiraayo ma dhici doontuu yidhi firaaq dastuuri ah marka dhanka kale maanta waxaa magaalada muqdisho ku shiray midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho labada dhinac oo shiray musharaxiinta madaxweynaha iyo kuwa la magac baxay bulshada rayidka waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee uu dalka maraayo natiija la'aanta shirkii samareeb macnaha waxay ka wada hadleen marxaladan cusub uu dalka gelayo ayay ka wada hadleen marka shirka runtii waxaa shir guddoominayay shirka maanta ka dhacay magaalada muqdisho hotel jazeera waxaa shir guddoominayay madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed runtii xaqiiqada waxa waaye arrimahan hadda aan arkayno iyo waxyaalahan isdiidan wax nagu cusub ma aha haddana waxaad u malaysaa soomaalida inaysan weli qaangaarin oo ay ka gudbin waxyaalihii hore noo soo maray kooxaha hadda isdhexyaacsan oo arrimahan ka hadlayo qaar waxay uga hadlayaan qaab qabyaaladaysan qaar mashruucooda dhan wuxuu ku kooban yahay kursigaas sidee ay u gaari lahaayeen qaarna waxa waaye danka ma laha dalka iyo qaran soomaaliyeed oo labadiisa lug ku taagan danka ma laha waa dad mashruuc loo soo dhiibay oo dalkoodii ka fulinaya dhibaatadaas ayaa runtii nasiib daro oo dalkeeni ku habsatay wax badan oo runtii waxqabad muuqda ayaa dalka ka jira howlgalo badan oo ciidamada oo dalka ay qabsadeen ciidamada la dhisay oo maanta dalka ka shaqaynayo oo mushaaharaadkoodii si toos u qaadanayo waxyaalahaas oo dhan ayaa socdo haddana waxaa loo baahnay in waddaniyiinta soomaaliyeed ama dadka muwaadiniinta waddanka u dhashay inay danta guud meel uga soo horjeestaan oo ay ka tagaan danta gaar ah laga shaqeeyo danta iyo maslaxada dalka oo laga gudbo gumaysi ama ajnabi kalkaal ustaad cabdiqaadir zeyn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sidaan ka war hayno midowga musharaxiinta maalin walba maalinta ka dambeyso baaqyo bay soo saarayaan haddii noqon lahayd yani tahdiid haddii noqon lahayd yani in firaaq dastuuri ah aysan marnaba ogolaan karin kulankii samareebna waa lagu kala tegey maxaa rajo ah oo aan leenahay yani maanta soomaaliya aleele waxay u baahan tahay ilaa iyo intaas bilood in laga warsugo si ay doorashadii wixii oo idil si rasmi ah ay ku qabsoonto oo firaaq dastuuri ah uusan u dhicin madaxweynaha waa run sida dastuuriga uu sheegayo firaaq dastuuri ah ma dhacayo uu leeyahay laakiin qolada kale ee qaar ka mid ah musharaxiinta waxay soo noqdeen madaxda dowladda ugu sareyso qaarkoodi madaxweyneyaal maalin walbana waxay ku handadayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiintaas ama kuwa ayaga ka horeeyey in 1991 loo noqonayo marka ma kula tahay in 1991 loo noqon karo maadaama ilaa ay hadeertaan wax laysku wada raacin waxa waaye hadda dadka musharaxiinta ah dad cusub ma aha oo hadda noo yimid oo xil raadiyaya ma dad xilal soo qabsaday waaye qaarkoodii waxay soo noqdeen madaxweyneyaal qaarkoodii wasiiray soo noqdeen dad oo dowladda runtii qaranka u soo shaqeeyey waaye haddana nin walbana
xilligii uu waddankan hogaaminayay daruufo tanoo kalaa la soo maray waxaa jiray madaxweyne sanad ku darsaday waxaa jiray madaxweyne 6 bilood loo kordhiyey hadba daruufta iyo xaaladda siday tahay ayaa wax lagu maamulayay marka midda aad ka dhawaajisay baryahan la hadlayay 91 loo noqonaa horta waxa waaye doonaa la wada saaran yahay dalkan shacab iyo siyaasiyiinba doontaas la wada saaran yahay haddii la duleeliyo dhammaan waxaan u maleynayaa biyahaasaa la geli doono baddaa lagu daadan doonaa burbur lixaad laa dhici doono marka waxaa nasiib daro ah 91dii wixii la soo maray iyo burburkii dalka ka dhacay iyo foolxumadii la soo maray in lagu hadaaqo laga sheekeeyo ida naftirkeedii nin siyaasi inuu meel la soo istaago waa nasiib daro 91dii waa mugdi waa burbur waa xasuuq waa dadnimo xumo waa dowlad la'aan waa dareen la'aan waa wax foolxumo Soomaaliya ku habsatay ma ahayn maanta in meel la soo istaago 91dii waa maalintii ay curatay dowlad la'aanta waa maalintii ay curatay boobka iyo dhaca waa maalintii ay curatay isdhaxyacaan ilaa maanta socdo oo meel la saari la waysan yahay marka waa wax foolxumo waaye in laga hadlo arrintaas lagu hadlo maanta waddanka wuxuu leeyahay dastuur oo qabyo ah wuxuu leeyahay baarlamaan uu leeyahay madaxweyne farmaajo hadalladiisa marka aad fiiriso haddii haddana uu wadahadal kale la galo wadahadalkaasi fashil ku yimaado in uu haddana arrinta keeni doono imaan doono baarlamaanka ayuu caddeeyey marka waxyaalaha aniga aadka iga yaabiyey waxa waaye oo waxaa la leeyahay waxyaalaha laisku haysto waxa waaye ciidan qaran oo gobolada Soomaaliya ka mid ah ku sugan oo ciidii calanka difaacayo oo la leeyahay ciidankan meesha ha laga saaro oo waxyaalaha la isku haysto ka mid yahay ciidamada waxay ilaalinayaan qarannimada waxay ilaalinayaan calanka waxay ilaalinayaan dowladnimada ciidanka meeshan ha laga saaro oo macnaha gabi ahaanba inay ciidankaas ka baxaan oo meesha lagu soo wareejiyo maamul goboleedka Jubbaland marka arrintaas naftirkeedii waa arrin runtii aan laga fiirsanin oo u baahan in aad looga fiirsado madaxweynaha hadalladiisi waxaa ka mid ahay khudbadii uu maanta uu ka jeediyey golaha baarlamaanka inuu 5 jeer tanaasulaad sameeyey oo waxyaalaha uu ka tanaasulaya wuxuu ka mid ahay khilaafka arrimaha doorashooyinka wuxuu kaloo tilmaamay sidaan sheegay hadduu heshiiskan socon waayo inuu ku soo celin doono arrinta baarlamaanka waayo baarlamaanka sidiisaba waxa waaye golaha sharci dejinta iyada ayay mataqaanaa sharciga dadka loo tiigsanayo oo marjaca loo noqonayo waa baarlamaanka waaye maxaa dhacay waddanka ma leh maxkamad dastuuri ah marka aad baan ugu xumahay xilligan in dalka oo isdhaxyac kale uu galo oo murun iyo iska qabsi uu yimaado oo dantii guud laga tasho waayo oo aad moodid ninba inuu ku dhegan yahay dantiisa gaar ah kuwa keliya u muuqdo in madaxweyneyaal ay waddankan ka noqdaan oo u ordaayo inay madaxweyne waddankan ka noqdaan oo ay fiirinaynin dantii iyo maslaxadii guud waan gartay ustaad cabdiqaadir zayn sidaan ku rahayna madaxweynaha maanta markuu yimaaday baarlamaanka isagoo khudbad jeedinayo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ayaa dadka qaar yani markii uu tilmaamayay dalka faragelin ayaa ka jirto fooda iyo frimbi iyo buuq iyo miis la garaac iyo
arrintaasna marar fara badan oo hore way soo noqotay arrimahaas sidee loogu gudbi karaa maxaadna isleedahay yaa u sabab ah qof xildhibaan ah metelayo bulshaweynta Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed maxaa ku kalafayo inuu dhaqan xumadaasi ka dhex sameeyo goob uu khudbad ka jeedinayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya runtii nasiib daro Soomaali ku habsatay waaye haddaad maqasho xildhibaan xildhibaanka waa shakhsiga keliya lagaga daydo qarannimada lagaga daydo waddan jaceylka lagaga daydo anshaxa iyo akhlaaqda lagaga daydo sharciga maxaa dhacay ninka meeshaas fadhiyo waa sharci dejiye dadka shuruucda dejiya ayaa la yidhaahdaa golaha baarlamaanka marka laakiin nasiib darada ku dhacday Soomaaliya waxa waaye qarannimadii iyo qabiilkii ayaa isku dhex darsamay waa la kala saari la'yahay nin aad arkaysaa baarlamaankii uu dhex fadhiyaa wuxuu u fadhiyaa u dagaalamaa yacni gobol oo reerkiisi degaan Soomaali uma muuqdo qaran burburaayo uma muuqdo hooyo oo xero dhex jiifto carruurteeda tabaalaysan uma muuqdo malaayiin Soomaali qaxooti ah uma muuqdo waxa u muuqdo waxa waaye tuulo ama magaalo oo reerkiisi degan yihiin dhibka kaas waay marka hebel oo fariin biyeeriyaayo iyo hebel oo miis garaacayo iyo waxa waaye qarannimadii iyo qabiilkii ayaa isku dhex darsamay waa la kala saari la'yahay aniga taasaan ku macnaynaa aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku soo celiyo su'aal kale oo ahayd sidaan ka warhayno gobolka Banaadir waxaa loo ogolaaday 13 kursi arrinkiisa layskuma soo qaadin arrimaha Samareeb marka xagee ayuu ku dambeey doonaa maadaama walaalaheena Somaliland loo sameeyay qaab ka duwan maxaa inuu diidaya anagana maadaama aan ku abtirsano magacaas Banaadiriga runtii waxa waaye su'aal loo baahan yahay waaye su'aasha aad weydiisay waa su'aal muhiim oo loo baahan yahay markii murankan meesha ka dhacay iyo isqa qabsiga shirka waxaa dib loo dhigay arrinta gobolka Banaadir taas waxa waaye runtii nasiib dara kalena oo dhacday arrinta 13 kursi gobolka Banaadir ka hadalkiisii iyo gorfayntiisii meesha dhanba waaba ka baxday saasay uga baxday arrintan iyo murankan markii la galay midda kale aad tilmaantay waa xaqiiqo maamulka Somaliland xildhibaanada maamulkaas ka soo jeedo si gooni ah ayaa waxoodii loogu maamulay waxaa la ilaaliyey rabitaankoodii ayaa loo tixgeliyey hoggaan gooni ah iyo maamul gooni ah ayay yeesheen doorashooyinkoodii faraha loogu qaaday horaan ooga hadlay haddana waa ka hadlaa dowladda waa ku mahadsan tahay dadaal dheer ayay muujisay gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo saxiixay 13 kursi oo horey baarlamaanka u ansixiyey laakiin waxay ahayd ay ku qurux badneed in qowmiyadda Banaadiriga oo ah qowmiyad balaaran oo jugraafi balaaran degan oo magac iyo maamuus Soomaaliya ku leh horseedkii iyo horaankii Soomaalida ah ma ahayn maanta in waxooda mugdi la geliyo mugdi uu ku jiraa waxaa dhacay gobolkan Banaadir dadka asal ahaan u leh oo asal ahaan uga soo jeedo waaye oo lagu dulmay oo xuquuqdoodii lagu difiray oo dagaaladii meeshan ka dhacay dhibaato badan ka soo gaartay hanti uga luntay deegaanadoodii lagu burburiyey waxay ahayd in si gaar ah loo maamuso inta kuraas ay ku leeyihiinna la caddeeyo oo ayaga faraha loo geliyo
ayaga in faraha laga saaray ahayd oo la dhaho war idinka wixiina waa kan hadda marka qaladka dhacaayo waxa waaye gobolka banaadir waxaa dadka nala degan ayagoo gobolo kale ka imaanayo gobolo kale ka soo safarayo oo aqalka sare ku jiro horena ugu jiray haddana gobolkaana waxay ka helayaan qayb sheeray ka helayaan taas waa cadaalad daro waaye oo runtii u baahan in il gaara lagu fiiriyo oo la ilaaliyo cadaaladda iyo xuquuqda dadka banaadiriga Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalkooda maanta haddii anagoo ku jirno 2021 ku jirno oo weli lagu dhaqmayo sharcigii 1991 anaa xoog leh anaa hub haystaa anaa warlord ahay anaa mataqaana taas ay weli socoto waa nasiib daro marka maamulada dalka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba waxaan u sheegaynaa inay caqligooda kaashadaan inaysan cadaaladda ka tegin waxaan dhan socdo isdhaxyaacan iyo murankan waxaa asaas u ah cadaalad daro wax walbo haddii waddo sax loo maro oo cadaaladda la waafajiyo dhib ma imaanayo muran iyo buuq ma imaanayo waxa meeshaan na istaajiyey oo meesha aan joogno na istaajiye waxa waaye cadaalad daro waay marka waxaan leenahay dhammaan dowladda iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan bulshada rayidka kulli Soomaali meel kastay joogto in sharciga loo laabto cadaaladda la ilaaliyo maadaama Somaliland la yiri wixiini gooni ayaad u maamulanaysaan doorashadiini waa nii gooni waxay ahayd qowmiyadda banaadirigana ayadana sidaasoo kale loo maamuso waxaa dhacay gobolkoodii oo ayaga loogu yimid oo magac iyo taariikh dheer ku leh gobolkan oo lagu dulmay haddana waxaa dhici doonto in doorashada aqalka sare dad oo gobolkanna wax ka helay horena u soo helay gobolo kale taasna waa cadaalad daro aad looga fiirsadaan leenahay walaalaheenni Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan cadaaladda waxa lagu maamulo fashilkan iyo foolxumadana haysato macnaha dhibaato foolxunayna gaarsiiyeysaa kalsoonida ay caalamka noogu qabaan horey u luntay marba marka kasii dambeyso waa sii lumi doontaa 2016 ayaa waxaa lagu balansanayay in 2021 doorasho nin iyo cod dhacdo ma dhacayso waa khasaaro weyn na soo gaartay inaan fiirisaan maaha shilimaad yar oo jeebka la idin gelinayo oo dalkiini iyo dadnimadiina ka doorataan taas maaha waa inaad dad mabda leh noqotaan dalkiini ka ilaalisaan foolxumadan iyo meeshaan xun ay ku sii socoto waa idin salaamaa dhammaantiin aad baad u mahadsantahay ustaad cabdulqaadir zeyn run ahaantii mowduuca ku saabsan gobolka banaadir ayaan rabaa kelmad basiid ah inaan kasoo jeediyo waxaa backgroundkaaga ka dhigatay run ahaantii daarar ka turjumayo inay yihiin raadraac taa oo xaqiijinayso dad yuugan banaadiriga inay yihiin dadkii asalka ahaa guryahan qaarkoodii aad u jeedaan ama daarahan waxay jiraan 10 sano ama 100 sano sidaa daraaddeed waxay ahayd aniga waxaan oran karaa maanta alifka meeshuu isku qaban la'yahay waxay ahayd in cafis la weydiisto dadkan gobolka banaadir lagu dulmay lagu bahdilay lagu burburiyey wax walba xumaan ah Soomaaliya isu geysatay laakiin si gaar ah faras magaalihii maanta Muqdisho aad u jeedaan waxay noqotay meel dugaagta duurjoogtada ah laga heli karo ayadoo cadaalad daradan la sixina run ahaantii dalka lagama yaabo inuu isku tooso ama inuu isu qabsado sababtoo ah halkan waxaan ugu soo jeedinaynaa dhammaan gaar ahaan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo run ahaantii wuxuu aad iyo aad ugu gaabiyey arrintan gobolka banaadir
وكراجي سدحدان إيتومن كرسي وحيهد إنو عدي أو خيحو ما دام أنهي دكا كو أبتر صدا مقع قبل كاسي هذاك تصالحان عبد القادر زين البنادري أنا قصير وكلام محمود عبد القادر بافض البنادري قفل بو البنادري هديغان كاس أيو مقع شنات أم مقع طمانات وقليا marka waxay ahayd in si cad loo qeexo anigoo fursadan qaariga ka faa'iideysanayna waxaan leeyahay siyaasiyiinteenan maanta noogu matalaan golaha baarlamaanka ama siyaasadda guud ahaan arrintan waa inay aad u soo farageliyaan ayna aqbalin marnaba xuquuq ka yar ama wax ka yar waxa aan istaahino waxaad ka warhaysaan in 2 kuraas hore noola siiyey nalagala naqsaday waxyaalahaas oo dhan waa cadaalad daro maadaama haddeertaan dalku u baahan yahay in loo tanaasulo waxaa laga maarmaan ah annaga run ahaantii waxaan ahayn dadkii dulmanaa oo mar walba alele maanta beri jansia laakiin maanta haddii laysku faanaya anagaa ka awood badan ama anagaa kaa tiro badan ama anagaa kaa hub badan anagaa kaa daddil badan waxaa keliya ku filan inaan dowladda rinaahno xasbuna allah wa nicma alwakiil taasoo ah silaaxa muslimka qofka islaamka ah taasoo isla markiiba cadaaladda ay isku rogayso mid Allah subxaanahu wa ta'ala yawm al-qiyaama garsoori doono taasna aanan lagaaga baahneen khabiir iyo khori iyo khurun iyo wax walba marka madaxweyne waxaan leenahay iska ilaali inaad yani dulumkan jiro aad qeyb ka noqoto sidoo kale walaalihiina Soomaaliyeed waxaan u diidanahay malahan anaga ayaa nahay dadka deegaankan ku abtirsada iyo walaalihiina kale ee nala degan anaga Soomaali weyn oo dhan inaan yani ma sha Allah maanta la yiraahdo maamul goboleedyada gobolka ka jira wax ku milhidin tiinana waan la leenahay run ahaantii aad bay u foolxun tahay waxaan u balan qaadaynaa dhammaan maadaama aan nahay dad biisaaniyiin ah xadaarad fac weyn leh dalkan ma sha Allah yani soo dhisay inaan marnaba dumin doonin walaalihiina annaga hana lagu dambeeyo ayaan leenahay kuraastan insha Allah ta'ala iyo walaalihiina kale asalka ah gudoomiyaha gobolka Banaadirna hadaladeena waa inuusan dhaliilsanin ama uusan yareysanin uu xaqa uu istaagaa laano masaakid can alxaq wa shaytaan akhras ay yiraahdaan gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa Ustaad Cabdiqaadir Zeyn maxaad jeclaan lahayd oo inaad ku soo gabagabayso adigoo mahadsan aad iyo aadaad u mahadsan tahay runtii waxa waaye dhammaan Soomaali weyn meel kastay joogto siyaasi iyo shacabba waa u gacan haadiyeynaa Soomaali dhibaatada haysato iyo mugdiga hareereeyey Soomaaliya ka bixi karaan cid kale kama bixi karto dhibaatada ku haysato waxaa loo baahan yahay marka caqliga inuu shaqeeyo waxaa loo baahan yahay danta guud laga wada shaqeeyo tan gaar ah meel layska dhigo 91 waa loo laabanaa iyo arrin saas ah dhiciisa suurtagal ma aha tan gobolka Banaadir haddaan ka hadlo waxa waaye waa hooyadii Soomaaliya oo dhan waay gobolkan calanka Soomaaliya haddaad aragtaan meeshii laga taagay waaye meeshii xornimo doonka Soomaaliya uu ka bilowday waaye mooshii Soomaaliya midaysay Soomaaliya kulmisay waaye ma noqon karto tuulo beel gaar ah leedahay ma noqon karto meel oo laba qof ay dhahaan anaga iskale suurtagal maaha waa meel Soomaaliyeed haddana waxaan hoosta ka xariiqaynaa waxay meel kasta leedahay magaalo kasta ama deegaan kasta dad lagu tixgeliyo oo horaankii ah horseedkii ah dadkii magaaladaas loogu yimid ah dadkii magaaladaas nolol iyo dhaqdhaqaaq ka sameeyay ah dadkaasna wax waaye waa qowmiyadda Banaadiriga ee faca weyn asal ahaan ka soo jeeda gobolka Banaadir waxay u baahan tahay tixgelin gaar ah in la siiyo arrin oo aan laga hadlin waaye haddii la iska dhaga tirana macnaheedu waxa waaye sida hadda socoto mar walba fashil mar walba in meeshii la isku yimaado tawfiiq la'aan ay ka dhacdo marka tawfiiqda waxay ku jirtaa waxa waaye in xaq loo laabto in cadaaladda laga wada shaqeeyo in midnimo loo istaago in Soomaalinimo aan dhammaanteeni u istaagno qabiil beel badageeraayo baarlamaan anoo ku jiro xildhibaan ah inaan
baarlamaanka dhexdiisii noqdo mataqaana anoo kursigaas sharafta leh ku fadhiyo inaan noqdo mudane tuuladiisii ama jufadiisii meel ay degto meeshaas ugu qeylqeylinayo waa nasiib daro aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhammaantiin waa idin salaamaynaa barnaamijkan gaaban aan wakti kooban ugu talagalnay ulajeedkiisi ma aha inaan cid gaar ah ku weerarno ulajeedkiisi ma aha inaan dowlad uga hor nimaano dowlad mar walba waxaan nahay dowlad ku nool dowlad kastoo dalkan ka dhalatana waxaan nahay dadka safka hore oo dowladdaas taageersan dhammaan waa idin salaamaynaa xafidakumullah waxaan ku wareejinaa walaalkayga maxamuud baafadal oo barnaamijka noo soo xiri doono جزاك الله ألف خير وحان إذا وضلينا قدام بنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ونكسن.